Assalaamu calaykum. Weligaa ma malaysay in fadhi uu noqon karo dilaa oo si arxan-dara wax u dilay? Sheekadan waxaynu ku arki doonaa filimkeena maanta. Waa filim cabsi iyo naxdin leh oo haddana dhinaca comedian ah. Filimkan waxaa lagu magacaabaa Killer Sofa. Laakiin ka hor intaanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, ha ilaawin inaad nagu soo biirto si aad u hesho muuqaalada soo socda. Filimka waxa uu ku bilaabmay nin tinta qaybta hore ka haday ama bidaar leh oo ka muuqda cabsi zaa'id ah iyo wilwil. Sababtan waxa ugu wacan isaga oo sameynaya caado u gaar ah uu ka raadinayay awood aan la arki karaynin inuu yeesho. Dabadeedna isla ninkii bidaarta lahaa wuxuu isu arkay inuu meel ku xirxiran yahay oo soo wajahday cabsi aad u daran. Kadib waxa uu soo galay nin minshaar wata oo bilaabay inuu lugaha ka gooyo. Dhinaca kale waxaan aragnaa fadhi oo u muuqda mid aan dhaqdhaqaaq lahayn, laakiin goobjoog ka ahaa goobtan dhiigga badan ku daatay. Intaa kadib waxaan aragnaa qolo oo delivery ah oo sii galaysa goobta alaabta ku jiraan. Waxayna meesha ka heleen fadhi oo xirxiran oo ku dhegan warqadaasoo fariin ku qoran. Fariinta ku qoranna waxay ahayd u geeya Faransiiska. Warqadda gadaasheeda waxaa ku qoran cinwaanka gabadha lagu magacaabo Faransiiska. Gabdhihii waxay damceen inay qaadaan fadhigii, laakiin mid ka mid ah ayaa gacanteeda meel khaldan gelisay, sidaasna waxay ku weyday faraheeda. Ninka ayaga la socday ayaa u sheegay in waxa ugu wanaagsan ay tahay inay isaga tagaan oo isaga la wareegayo arrimaha fadhigan ama kursigan. Intaa kadib waxaa soo baxaysa geesiyadii lagu magacaabo Faransiiska iyadoo iska raqsaynaysa ama iska ciyaaraysa, laakiin ciyaarta waxaa dhex galay laba dambibaare magaciisa la dhaho Bob iyo dambibaare magaceeda la dhaho Rosan, kuwaas oo sheegay inay rabaan inay la hadlaan Faransiiska iyo saaxiibteeda. Sababtoo ah waxaa jiray qof ay garanayeen oo lagu magacaabi jiray Federico oo la dilay. Federico waa kan lugaha laga jaray. Kadibna waxay Faransiiska weydiiyeen su'aalo dhowr ah. Kadib Faransiiska waxa ay sheegtay in aanay wax luga ku lahayn arrinkan, sidoo kale inay la yaaban tahay. Faransiiska saaxiibteeda Max ayadan waxay sheegtay inay la yaaban tahay sheekadan, sababtoo ah Bob wuxuu aad ugu mashquulsanaa Faransiiska. Max waxay joojisay hadalka waxayna sheegtay in Faransiiska ay tahay inay soo qaado fadhigii ay iibsatay. Faransiiska iyo saaxiibteeda Max markii meesha ka dhaqaaqeen, dambibaare Rosan waxa ay sheegtay in aanay ku kalsoonayn gabdhahan. Waxaana sidoo kale dambibaare Bob uu sheegay in ay wax un khaldan yihiin. Ninkii arrimaha fadhiga la wareegay ama delivery-ga ahaa wuxuu soo gaaray cinwaanka warqadda ku qornaa si uu fadhiga u guddoonsiiyo Faransiiska, balse wuxuu la kulmay Max awowgeeda. Markaas ayuu weydiiyey aaway Faransiiska si uu u dhiibo fadhigii, balse Max awowgeeda wuxuu ninkii u sheegay inuu khaldan yahay, inuusan jirin qof halkan ku nool oo magacaas wata. Max awowgeeda wuxuu hilmaamay in Max saaxiibteeda la dhaho Faransiiska. Kadib markay bannaanka u baxeen, Max awowgeeda wuxuu si lama filaan ah ku arkay fadhiga. Markaas ayaa waxa uu dareemay dareen aad u cajiiba. Sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu fadhigii taabto. Markuu fadhigii taabtay ayaa riyo u timid isagoo meel keyn ah jooga, wuxuuna arkay nin gabar bursanaya. Kadib wuu soo naaxay. Fadhigii wuxuu soo gaaray Faransiiska. Faransiiska ayaa timid gurigeedii waxayna ka codsatay ninkeedii inuu fadhigii la soo baxo ama fadhigii u keeno. Habeenkii Faransiiska waxay ku fadhiday fadhigii ama kursigii iyadoo shaah cabaysa. Isla mar ahaantaana Max awowgeeda wuxuu dareemay in fadhigan uu qof dilay. Laga soo bilaabo xilligaasi wuxuu bilaabay inuu internetka galo, mawduucyadaasi YouTube-ka ka raadiyo. Waxa uu gaaray kanaal nin talo ka bixinayay sida looga adkaado ruuxaanta. Subaxdii xigtay Faransiiska ayaa soo toostay waxayna aragtay quraac diyaarsan oo saaran fadhiga. Isla markiiba waxay istiri ninkaaga ayaa quraacdan kuu diyaariyey. Booliiska waxay doorbideen inay hubiyaan arrinkan. Kadibna booliiska waxay ogaadeen in Federico oo dhintay uu ahaa khabiir ku takhasusay voodoo oo ah caqiido diimeed. Booliiska ayaa mar kale wacay Faransiiska. Halkaasna waxaan ku ogaanaynaa sirtaasoo ah in dhammaan ragga iyo dumarka qaarkoodba ay dareemaan soo jiidasho la yaab leh ee Faransiiska xaggeeda, oo dhammaantood geli doonaan xaalad waali ah oo ay ku waalan doonaan Faransiiska. Dhanka kale waxaan ku aragnaa Faransiiska ninkeeda oo karinaya cunto, fadhigiina waa uu daawanayaa. Kadibna si lama filaan ah wuxuu maqlay shanqar oo u maleeyay inuu fadhigii dhaqaaqay, laakiin wax dareen ah ma siinin. Hase ahaatee fadhigii wuxuu go'aansaday inuu dhaqaaqi doono xaggiisa ilaa heer uu dhaawac gaarsiiyo. Kadib lugtii ayuu dhaawac xun ka gaarsiiyey. Booliiskii markay guriga yimaadeen waxay ninkii ka heleen barkadda qubeyska oo keligiisa ku jira. Dhulkii oo dhanna waxaa ka buuxay dhiig oo ka soo baxay lugtiisa la dhaawacay. Intaa kadib ninkii wuxuu go'aansaday inuu aado guriga hooyadii si uu u kabsado. Markaasna waxa uu damcay inuu cuno kaniini xanuun baabi'iye ah, laakiin waxa uu ogaaday in biyihii ka dhammaadeen. Haddaba hooyadiisa ayuu u yeeray si ay biyo u keento, laakiin waxna way maqli weyday sababtoo ah hooyadii waxay ku jirtay ama waxay ciyaaraysay ciyaarta loo yaqaanay yoga. Waxa ay noqotay inuu isaga soo kaco si uu biyaha u doonto, balse inta uu daaqada eegay ayaa waxa uu arkay jilaab. Wuxuu furay dariishadii wuxuuna arkay fadhigii ama kursigii oo hoos ku sugayay.
wuxuu damcay inuu daaqada xiro laakiin fadhigii ayaa u tuuray jilaabka mar labaad. Halkaa ayuu mar kale ku dhaawacmay. dhaawacii labaad ayaa u sababa inuu markiiba dhinto. subaxdii dambe hooyadii ayaa ka furtay albaabkii, waxay damcday inay qolka si fiican u xaaqdo, laakiin waxay aragtay qayb ka mid ah jirka wiilkeeda oo ku dhex jirta mashiinka xaaqinka. gabadhii Francisca ahayd waxay la kulantay mid kale oo ka mid ah kuwa ayada ku waalan. ninkii wuxuu ka codsaday inuu guursado, balse waxay u sheegtay inaanay awoodin, taasina ay sabab u tahay inay guursatay. markii ay Francisca baxday, ninkii ayada ku waalnaa ayaa gurigii soo galay. waxa uu bilaabay inuu darbiga ku dhajiyo kamera. fadhigiina ama kursigiina wuxuu daabanayaa ama indhaha la raacinayaa waqtiga ninka waxa uu sameynayay. ninkii waalnaa ayaa buusada hoosteeda galay oo bilaabay inuu uriyo carafta ama shiirka dharkeedii. markaasna fadhigii wuxuu soo galay qolka uu ninka ku jiray, wuxuu bilaabay inuu ninkii ku garaaco feero. dambibaarayaashii ayaa Francisca u sheegay in ninkii guursaday uu dhintay. waxaa la rumaysaday inay lug ku lahaayeen arrintaasi, sidaa darteed waxay go'aansadeen inay degaan hotel. waxayna u maleeyeen in mid ka mid ah nimanka kuwaasha iyada uu noqon karo dilaaga. Max oo saaxiibteeda ah way dhaqaaqday si ay keligeeda u fariisato. isla mar ahaantaana Max awowgeeda iyo saaxiibtiisaba waxay ku fikirayeen cidda qaadatay fadhigaani, sababtoo ah waxay og yihiin in qofka fadhiga qaata uu naftiisa khatar kaga imaanayo. intaa kadib saaxiibtii waxay mooday in fadhigaasi ay leedahay Max saaxiibteeda oo ah Francisca. isla markiiba ninkii waxa uu u yeeray gabadha uu awowga u ahaa ee Max, waxa uu u sheegay inay waajib tahay inay burburiyaan fadhigaasi ama kursigaasi. Max waxay sheegtay in ay jirto arrin aan la ogeyn oo ku saabsan fadhigan ama kursigan, sababtoo ah waxay dareentay in Francisca ayna wax ka ogeyn tan iyo saacadii ay iibsatay fadhiga. Max waxay aadaysay guriga saaxiibteeda Francisca si ay u keento fadhiga. dabcan fadhiga waxa uu sameynayay wixii aan dhammaanteena ka filaynay inuu sameeyo, oo ah inuu wax dilo. wuxuuna kor u qaaday ninkii ku waalnaa Francisca si uu ugu tuuro balkoonka. Max ayaa aragtay falka uu ku dhaqaaqayo fadhiga, kadib iyada waxay bilowday inay dib u laabato, laakiin shanqar yar ayay samaysay. sidaa darteedna fadhiga ayaa maqlay shanqarta, wuuna arkay Max. dabcan fadhigii waxa uu bilaabay inuu Max weeraro. iyadoo ordaysa ayaa furihii gaariga ka dhacay iyada oo aanan ka warhayn, kadibna qol ayay isku soo xirtay. dabadeedna waxay furtay daaqad, waxayna go'aansatay inay ka baxdo. waxay iska soo tuurtay daaqadda, waxayna ku dhacday haanta qashinka ee wadada ku taalo, wayna suuxday. Francisca iyadoo hotelka joogta waxay maqashay qof wax sheeganayo, kadib waxay tagtay jikada, waxayna ogaatay in dhawaqa uu ka soo baxayo weelka alaabta lagu dhaqo. halkaana waxaan ku ogaanaynaa in fadhiga uu ka wacayo qolka. isla markiiba booliiska ayaa yimid oo garaacay albaabka qolka Francisca ee hotelka, oo markii ay furtay waxay u sheegtay inay ka cabsanayso in saaxiibteeda Max ay wax gaaraan, sababtuna waxay tahay inay saacado badan maqan tahay. intaa kadib waxay u baxeen guriga Francisca si ay si fiican u raadiyaan Max. markii ay soo galeen gurigii waxay ka heleen furihii gaariga oo dhulka yaala. waxay bilaabeen inay wacaan. waxa ay maqleen dhawaaqa telefoonka oo hoos ka soo baxaya, taasina waa sababta ay hoos ugu soo digeen. waxay heleen ninkii Francisca ku waalnaa meydkiisa. isla markaas ay Francisca soo jeesatay oo waxay aragtay fadhigii oo ku bilaabay inuu la hadlo. baqdin darteed way ka carartay. maalintii xigtay waxay isku dayday inay isdisho, laakiin waxaa soo wacay Max awowgeeda oo u sheegay inuu u baahan yahay inuu la hadlo, waana daruuri ayuu ku yiri. Francisca waxay aaday guriga Max. halkan waxaan ku ogaanaynaa in fadhiga uu ku dhex jiro ruuxaan. awowga Max wuxuu waqtigaasi riyada ku arkay naag la yiraahdo Valeria. naagtan iyo ninkeeda ayaa ahaa dad shar leh, waxayna dadka ku laayeen sunta ka soo baxa geedaha qaar. dadka nafafkoodana way xadi jireen oo way dhexgeli jireen, waxayna doorbideen hab dhaqankii ay labadooda samayn jireen. Valeria waxay awood u lahayd in ay nin kasta hantido ilaa ay heer gaarsiiso qofkii ama ninkii ku waasho. ninka Valeria qabay ayaa la qabtay waana la gubay. hase ahaatee Valeria waxay ku guuleysatay inay baxsato. mar kale waxay ku sigtay inay qabtaan, qoortana ay ka jareen, oo waxaas oo dhamiba waxay hordhacayeen naag beeraley ah oo la oran jiray Mary. isla markiiba naagta waxaa gashay ruuxaanta Valeria. markaas Francisca waxay bilowday inay wax walba fahanto, waxayna sheegtay in hadda wax walba dhaca ay leeyihiin caqligal iyo sabab gaar ah. Max awowgeeda ayaa u sheegay in ruuxaanta Valeria ay doorbiday inay joogto ama ay noqoto abka ab. sidoo kale wuxuu u sheegay inay fadhigan ku jirto ruuxaan. intaa kadib waxay go'aansadeen inay sameeyaan sanduuq alwaax ah si ay isugu dayaan in ay dabin ku sameeyaan ruuxaantaas. intaa kadib Francisca waxay aragtay riyo, taasoo ah wax walbo ay ku aragtay riyadaasi oo waxay ku aragtay kalar casaan ah.
ama kalar gaduuda. Muraayadii ay isku aragtay. Markii muraayadii u dhawaatay waxay aragtay Valeria oo agteeda ah. Francesca waxay dib u eegtay muraayadii laakiin waxay ogaatay inay tahay naagtii Valeria ah. Markaas ay isku dayday inay disho. isla markii awowga Max waxa uu toosiyay Francesca waxaana uu ka codsaday inuu siiyo ama inuu u dhiibo sanduuq laakiin way ka qaadatay oo u sheegtay inay ku tilayso fadhiga ama kursiga. isla markaana dambibaarihii waxa uu aaday gurigii uu degnaa ninkii ku waalnaa Francesca ee la dilay isaga oo ku dhintay birta feerada. halkaa waxay ka heleen qaar ka mid ah galalka kombiyuutarka oo ah cajaladaha laga soo duubay guriga Francesca. dabcan sida naqaanayba ninka waalnaa wuxuu ka daawanayay fiidiyoyada uu ka duubay Francesca ay ku jirtay cajaladaha. sidoo kale waxay arkeen fadhiga ama kursiga kaligiisa dhaqdhaqaaqayo. Francesca ayaa timid gurigeeda waxayna hareereysay sanduuqa waxayna weydiisatay ruuxaantii inay meesha gasho laakiin way uga jawaabi weyday. oo markaas Francesca waxay bilowday inay fadhiga ku shubto benziin waxayna shiday taraq laakiin taraq kasta isaga isdeminayay. isla markaana dambibaarihii wuxuu ku guuleystay inuu ogaado cidda lugaha ka jiray ninkii bidaarta lahaa maadaama uu meesha joogay. dabcan dambibaarihii wuxuu weydiiyay sababta loo dilay balse waxa uu sheegay in aysan la dilin. ninka bidaarta lahaana waxa uu ka codsaday inuu lugaha ka gooyo maadaama uu doonayo inuu fariisto. oo markii dambibaare Bob uu taas ogaaday wuxuu u yeeray dambibaare Rosen waxay toos u aadeen gurigii Francesca. oo markii ay soo galeen gurigii waxay ka cabsadeen in fadhigii ayaga wax gaarsiiyo. waxay xabad ku dhufteen fadhiga qaybtiisa kore markaas ay dhulka ku dhacday waxaana soo muuqatay ruuxaantii. Francesca markay aragtay ruuxaantaasi waxay u carartay musqusha oo isku dayday inay kiniini laqdo ama qaado laakiin dhulka ay ku dhaceen. waxayna u dhaadhacday inay soo qabato kiniida si lama filaan ah waxay ku aragtay ruuxaantii albaabka ka soo gelaysa. dabcan waa ruuxaanta Valeria. kadib Max ayaa soo naaxday waxayna ka soo baxday khashin qubkii ay ku jirtay waxayna aaday guriga Francesca waxayna bilaabay inay weydiiyaan inay fiican tahay iyo in kale. markaas ay Francesca iyo dambibaare Bob si wada jir ah u sheekaysanayeen. Francesca waxay dambibaare Bob u diyaarisay koob shaah ah oo ay ugu shubtay ubaxaasoo la mid ah ubaxii Valeria isticmaali jirtay oo ah sunta ay wax ku dili jirtay. dambibaarihii Bob ayaa meeshana ku dhintay. dambibaare Rosen waxay ururisay dhammaan dukumentiyadii la xiriira arrimaha fadhiga ama kursiga. kadib waxaa soo wacday gabadhii qaabilsanaa qolka meydka iyadoo sheegtay in jirka Valeria uu leeyahay wax aan la aqoon sababtoo ah waxa uu yaalay 2 toddobaad. dambibaarihii ayaa aamin weysay sababtu waxay tahay dambibaare Bob ee xabad ku dhuftay 2 maalmood ka hor. Max waxay bilowday inay wax badan ka ogaato arrinta ruuxaanta waxayna ogaatay in ruuxaanta gali karto jir kale. dambibaarihii waxay aaday guriga Francesca sababtoo ah waxay ogeyd inay la joogto Bob waxayna rabtay inay u sheegto wax walba siday u dhaceen. laakiin markay gurigii timidba albaabkii ayaa keligii furmay waxayna aragtay in Bob uu dhulka yaallo iyo fadhiga in laga dhex hadlaayo. Francesca ayaa gadaal ka soo maray wayna dishay. Max ayaa sidoo kale dimid waxay daaqada ka aragtay sidoo kale Francesca iyo Bob ay ka soo baxayeen guriga. haddaba ruuxaanta labada qof ee samaynaysay caadada dilka ah waxay ahaayeen Valeria iyo ninkeeda. waxay dhexgaleen Francesca iyo Bob. haddaba labadooduba way isdilayaan filimka halkaasna ayuu ku dhammaaday. dabcan haddii aad ka heshay filimkana maanta ha ilaawin inaad nagu soo biirto si aad u hesho muuqaalada soo socda ee baydankii.